Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawade, sidaynu muuqaalkeenii hore ku soo sheegnay, muuqaalkani waxaynu ku soo qaadan doonaa maqaalkii aan idin ballan qaaday inaan soo gudbin doono. Haddaba muuqaalkani ayaynu ku soo qaadan doonaa maqaalkaasi. Marka horeeto, dhegeyso oo la soco maqaalka waxa uu ka hadlayo, wixii ka dambeeyana fikirkaadii ka dhiibo qaybta hoose ee kommentiyada. Hana iloobin inaad asxaabtaadii la wadaagtid si u ogaadaan iyaguna riyada waddankeenii hooyo. Haddaba ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. inta aynan guda gelin muuqaalkeenna maanta, fadlan daawade haddaad nagu cusub tahay nagu soo bir, haddaad hore nala joogtayna fadlan muuqaalka like saar oo la wadaag asxaabtaada. ku soo dhawaada mar kale muuqaalkeenna maanta. Haddii dable generaal uu noqday, haddii mashaqayste uu taajir noqday, haddii dhakhtar iyo injineer naanees ay noqdeen, haddii hogaamiye gobol uu madaxweyne noqday, haddii saqiirkii uu agaasimo noqday, ma quusan oo irid alle ood ma saarno. waan ku wareeray, soon ayaan xirtay, waana iska seexday, waan riyooday oo waxaan ku riyooday shantii Soomaaliyeed oo mar kala midoobay. meel kasta hal calan oo hal xidig leh ayaa ka taagan. arrinta labaad ee aan ku riyooday, wareegta ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu kala bedelay qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda, waxayna u qorneed sida tan: gudoomiyihii gobolka Jigjiga waxaa loo bedelay Shabeellaha Dhexe, gudoomiyihii degmada Mandheera waxaa loo bedelay Boorama, maamulihii dekedda Jabuuti waxaa loo bedelay dekedda Kismaayo, gudoomiyihii degmada Hobyo waxaa loo bedelay Gaarisa, gudoomiyihii degmada Cali Sabiix waxaa loo bedelay Afmadow, taliyihii saldhigga booliiska Afgooye waxaa loo bedelay Wajeer, isuduwaha xanaanada xoolaha degmada Qaryooley waxaa loo bedelay Boosaaso, taliyihii nabad sugidda degmada Carta waxaa loo bedelay Garowe. arrinta saddexaad ee aan ku riyooday waxay ahayd dowladda Soomaaliya oo shaacisay in sanadkan ay qaabilayso 30,000 oo ruux oo qaxooti ah oo ka imaanayo Koonfur Bari Aasiya, iyadoo lacagta ceerta ay dowladda bixiso la kordhiyo 40%. arrinta afraad ee aan ku riyooday waxay noqotay Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed oo go'aamisay in deeq waxbarasho la siiyo 200 oo arday oo ka imaanayo waddamada soo korayo. arrinta shanaad ee aan ku riyooday waxay ahayd gudoomiyihii shirkadda OPEC oo sanadkan loo doortay wasiirka tamarta iyo shidaalka Soomaaliya. arrinta lixaad ee aan ku riyooday waxay ahayd sida ciwaanka muuqaalkeenu ahaa: markabka diyaaradaha xambaare Hadraawan iyo 6 markab oo qaada gantaalada ridada dhaadheer iyo 2 gujisyo ah oo badda hoosteeda quusa oo ay leeyihiin ciidanka badda Soomaaliya ayaa loo diray Imaaraadka Carabta si ay uga qayb galaan dhoolatus military oo ay sameynayaan ururka Jaamacadda Carabta. arrinta toddobaad ee aan ku riyooday waxay ahayd hay'adda SSA ee loo soo gaabiyey Somali Space Agency oo hawada sare qaabilsan ayaa heshiis la gashay dhigeeda dalka Shiinaha. si wada jir ahi ayay iskaga kaashan doonaan diridda dayax-gacmeedka Bakool 2 oo laga gamayo saldhigga cirifka Gardafu ee gobolka Bari ee Soomaaliya. waxaa sii raaci doona 5 cirbixiyeen oo u dhashay dalka Shiinaha iyo 2 Soomaaliya oo hawada ku maqnaan doono muddo 18 bilood ah. arrinta siddeedaad ee aan ku riyooday waxay noqotay warshadda bacriminta uraniumta ee Guraceel ayaa la balaariyey si ay u suurto gasho in tamarta korontada ay ku filnaato guud ahaan waddamada bariga qaaradda Afrika. markii aan soo toosay waxaan garan waayey waxa aan ku dhex jiray markaas inay tahay riyo ama run. ha quusanin, soo ducee in riyadeena uu Alle noo rumeeyo. waxay ku xiran tahay oo keliya annagoo si wada jir ahi u aaminno inaan samayn karno arrintan oo ku dhaqaaqno, Allena uu nagu garab siiyo. qadarta Allena lagama quusto. xor ayaad u tahay inaad fikirkayga naqdiso, wax ka beddesho, beeniso ama si kale u dhigto, ayuu ku soo koobay hadalkiisa Professor Yaxya Sheekh Caamir
oo ka mid ah barofesoorada sida weyn wax ugu qora dhaqaalaha Soomaaliya. Haddaba daawade, maqaalka barofesoorkani sidan ayuu u qornaa. Haddaba ka dhiiba fikirkaadii qaybta hoose ee kommentiyada. Waa riyo mudan in la xuso oo qof walba Soomaaliya ay qalbigiisa taabanayso riyadani. Haddaba qof walba waa inuu u diyaar garoobaa siduu u dhisi lahaa dalkiisa. Laakiin dalka in la dhiso waxaa ka horeysa mar walba qofka inuu nafsidiisa dhiso, kadibna dadka ku hareeraysan uu dhiso, kadib ayuu dalka dhisman karaa. Haddaba qof walba waa inuu nafsidiisa marka horeeto uu xoogga saaraa, wixii ka soo harayna iyagaa soo hagaagi doonee. Haddaba qof walba Soomaali ahi waa inuusan meel cidla uusan ku qancin inuu fadhiyo. Wax qabso oo marka horeeto naftaadii ku qanac inay wax qabsan karto, kadib ayaa dadka wax u qaban kartaa. Maqaalkani aadka u xiisaha badan. Haddaba la wadaag asxaabtaada si ay u ogaadaan iyaguna macluumaad ku saabsan waddankeena hooyo. Haddaba daawade, haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir. Haddaad hore nala joogtayna fadlan muuqaalka like saar oo la wadaag asxaabtaada. Muuqaalkeena maanta intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa. Intaynu ku kulmi doono muuqaalkan muuqaalkiisa kaleeto, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.